وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد أيان إني سلامي إتي الصبح وتزوح وناكسن إتي مالين وتمانين وناكسن إتي همين وتهانا همين وناكسن أنا وحا إتي كل مالين إتي هاي waxaan maanta ka sheekay doonaa oo aan diiradda saari doonaa doorasho halkii marayso nabadgelyada waddanku sida ay tahay iyo qaabka hadda ay xilligan ay tahay maanta waxaan ugu maqaalaa in maamulka galmudug labadii xildhibaan ee golaha sare ugu dambeeyay in ay maanta ay doorteen oo ku guuleystay cabdiqayb xamin ku guuleystay xildhibaan kale oo aqalka sare ka tirsan walxamdulillah mar hadday bilbilaabatay marka hadda waxaa maqaalaa in ay isku hayaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu sida laga yeelayo bahalka isha golaha shacabka xildhibaanada shacabka si laga yeelayo in lagu kala dooran karo laba magaalo awal waxay ahayd maamulka isheeg horta maamulkan galmudug way iska cadiyay wixiisu oo wadamihiisu waa nabad nimanka yarka hore sunaha yar xogaa shaqooyinkiina awood ay xamale waa meesha rabaan ku dooran karaa haddii rabaan gaalka ay ku dooran karaan haddii rabaan caadi ku dooran karaan haddii rabaan wax ku dooran karaan dhuusan mareeb meel kasta ay ku dooran karaan oo inta ay ka taliyaan laakiin waxaa la isku haystaa sidoo kale Puntland yaan dhaafine waa sidoo kale Garowe Boosaaso meesha rabaan ay ku dooran karaan iyaguna laakiin maamulkan hadda labada maamul oo Axmed Madoobe iyo ninka la yiraahdo ii sheeg lafta gareen baydhabo ayaa hadda la isku haystaa iyo Hirshabelle saddexaas maamul ee dhibaatada ka taaganta maaluhu waa ka tallaabo qaaday ninka la yiraahdo lafta gareen braawe inuu tago waa tagay laakiin xogaa ayuu qayaqayaameeyay braawe dad badan degan dad badan oo Soomaaliyeed degan hawiye degan daaro degan raxaweyne degan marka كل مدحوينها حلكي سنة ماضي ياخذ على إنه مدى وحقيامية وحوين هذا وحملوجا وسكايجا ومدى وشبان مركا هالكا ضد صومالي كلا ودقن أو يدارو لك سور جسو يورنيو أنا قال لي وحكم لي ماشان وحيا لا ماشان وحاسكلا وحاسكلا ديل يمرفل أيوة هي أنا ديل يمرفل أكملنا هالكا دقناي وكلامي وبس مالوك أصلا هاي ما يالي قريودي قاتن يهبكود حبضي أفريقيين وأنا قصب مر هدي الويري إيشك ماشي أقول الله تبغى كم تهد ده أنا سوي كل هذا وقصب مركا أيضا هالكحولها كذا وعكرنته عكرنته يا كتاجن إذا ما حتى حوجة ضلك حتى الله يقول جبين أو شبه الله هو السي أو قبلها غلا صفن مركا واحد من دول ده يا كشغان يسا مدحونها xilkiisa dhamaaday maxamed farmaajo ayaa wuxuu rabaa in uu ku subto waxa ka soo baxay lafta oo dhan iyo meeshaas iyo digid iyo mirifle iyo shabeellaha hoos oo dhan ilaa meel wax ka hilmayay ninka la yiraahdo ii sheeg Jubaland ayagana waxa waaye waa dhameeyeen aqalka sare laakiin ayagana golihii shacabka u haray golaha shacabka waxaan in lagu doorto ii sheeg meesha la yiraahdo ii sheeg meesha la yiraahdo ii sheeg Garbahare iyo Kismaayo mana soconayso in uu ninka la yiraahdo ii sheeg Axmedoobe uu Garbahare uu wax ku doorto ilaa ma batay kareen ma batay karin dee doorasho ka ama ayadana meeshaan waxay u xiran tahay madaxweynihii xilkiisa dhamaaday maxamed farmaajo ay u xiran tahay halkaas ayadana waxa uu maqlaa xataa ninkan farmaajo inuu ku fakiray inuu ka jaro maamulka Jubaland inuu ka jaro gedo maamulka gedo uu hoos keeno baydhabo lafta gareen markaan waa masuusha walaayaan maskaxdu bal ay dadkaas madaxda waayo farmaajo bal ka waran marka nimanka ka jooga marxanka way ka qayl waxay yiraahdeen dhageysan anagu niman yahow anagu Jubaland ka tirsannahay inkastoo qof naga dhaxayo haddana raxweyn iyo halkaas ma aadin anagu ayuu meeshaas ma ka taagantaa in la isku qaato ayay ka taagantaa dhinacan kale marka u leexano oo Hirshabelle waxa weeye horta badana inay doorteen ayaa u malaynayaa wixii joor ka soo jeeday ayadana lafta gareen ilaa hadda ma uusan tagin lafta ninka la sheegay lafta gareen ma ahane
guudlaa muusa tegin beledweyne ilaa hadda caasimadii ilaa hadda muusa tegin waddanka hirshabeelle marka ayadana way ka taaganta meeshaasoo rajilka ma qabo inuu tago ninka la yidhaha ii sheeg madaxweynuhu rajilka ma qabo waxaa tegi waayey madaxweyne ku-xigeenkii oo dutago xataa awood kuma leh nin xuud laga haysta meesha oo gaar ku dhacday oo aan naxayn marka maalinahaasa waxaa yimid niman dhinaca beledweyne waa laba qaybood qaybtan mareexa qaybtan ay hogaamiyaan ii sheeg xawaaluhu oo dhinaca buudada ka xigtay dhinacan nimankan la yidhaahdo ii sheeg nimankan gaalajacalka iyo jajeelaha iyo waa isku dhinac waa isku dhinac hal ay ka soo jeedaan waxaasna hal dhinac ka soo jeedaan hal dhinac meelaha ka degan magaalada ugaadka hadda koolaa tegey laba ka barata magaalo dhinacaan bari oo buundada ka baraysa waxaa degan xawaala dhinacaas galbeedkana waxaa degan nimanka gurmeel isku lahoo badan aa degan dhinacaas jajeel oo kale galjacal oo kale xataa nimankan jireerta la yidhaha xataa reesha xataa xaggaas raacsan yihiin marka waxay ugu maqaalaa inay 8 ku leeyihiin xawaaluhu xildhibaanadaas golaha shacabka 17 ay leeyihiin nimankan kale oo gurmeel isku yidhaha marka waxay yidhaaheen niyow annaga xawaale nooma taliye haddii wax maqlayso ra-iisul wasaaruhu halkaa imaad oo meeshaas nagu qabo annaga wixii halkaasaan ku doorayna doorashadiin haddii ay dhacdo inaad dalkaas u wareejiso xawaale ayaa sirban ka yeelaya marka aan waxaan dhihi lahay nimanka xawaale markii tala iska dhaafo burcaddaa dhinacan galbeedka oo ay degan yihiin nimanka gumadhabe doorashada lagu qabto meeshaas lagu qabto waa nimanka xawaale maxay meesha ku hayaan dhanba maamulna qaarna waa maamulkii qaarna waa xuud jaraan xuud waa ergiis marka saas ay baasho ay balance ku tahay haba ma waa laba maal saddex ay qabanaysaa dhinacan lagu qabto tala isu geeyo wax ciidama marka culayska ugu badan wuxuu ka taagan yahay sida uu rabay hadda ninka la yidhaha ii sheeg sida hadda uu rabay ninka la yidhaahdo madaxweynaha xilkiisa dhammaaday maxaa abdullahi farmaajo isaga rabaa inuu beledweyne ku subto iyo inuu ku subto meesha la yidhaha ii sheeg muddoba labadaas waa rabaa beledweyne iyo labadaasba waa isisiiyo wax kale ma hayo labadaas iyo sorry iyo garbahaari saddexaas gobol ayuu ku tashanayaa marka dee waxa weeye hawshu hadda way cakirintahay waa hadda maqlaya waxa isku dhacsan ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ra-iisul wasaarihi wuxuu leeyahay anigow doorasho mar hore qabsoomi lahayd oo jubbaland iyo ninka iyo hirshabelle mar hore ay qabalahaayeen haddii farmaajo aadan ahayn halkaas laba meel lagu kala qabto marka hadda waxay u badan tahay in warka u guulaysan doono warkan ay rabaan madaxweynayaashu goboleedyadu ay rabaan oo ay rabaan in hal meel ku qabtaan marka horta laba maamul waa gaar labadaas maamul oo waqooyiga gobolada dhexe iyo mudug ka soo jeeda wuxuu waa iska cadi nimankaas waa hal meel ay laba meel waa qoba karaan haddii hal meel taana waa alxamdulilah laakiin saddex maamul oo kale oo koonfurta waxa ma hayaan wax gacan ugu jiro lama arko lafteeda aad u baqaya meesha ragga weyn soo jeeda ninka la yiraahdo waxa soo jeeda oo xildhibaan raba iyo ninka la yiraahdo ii sheeg shariif sakiin oo nin halis ah oo libaaxa oo kursiga u saamar u soo fuulo markuu u soo fuulo kursiga alaga diji karin farmaajo ninka la lafteena hawada ku maqan yahay iyo axmed waa ninka la jaa madoobe oo Mooryan Turk ahay aareeda raggu way badan yihiin iyo ninka la isha jawaari asna halis asna aad soo fuulo alaga diji karin saalada marka hadda hawshu waa isku cakaran tahay lafteena innaha u furan markuu saddexnaad ku soo kacaan wuxuu leeyahay shariif sakiin ninka la ii sheeg jawaari iyo ninka la ii sheeg aadan madoobe saddexni hadday kor u soo kacaan ay jaarsa u soo fulaan siyaasadda ahmadoobe ninka la lafteena dhulka ayaa la go'ay waliba shariif sakiina ugu hasaasan iyo ninka la iyo jawaari
marka odagan kaloo asagana hadda yartaan tugo meesha joogo ii sheeg magaciisa waxaa la yidhaha hadda golaha shacabka oo hore dhacay ka mid ahay gudoomiyaha u ahay kaasisna waa gudaayay markaas raggaa meel soo fulaa marka dee hawshu hadda waxa weeye waa alxamdulilah meel fiican ayay maraysaa marka waxaan leeyahay hawsha hala wado wax yaraa dhiman farmaajo guri weynka iska daayo 5 sano waa qaatay marka saas ayay tahay insha Allah waa hawshu waa sidaas marka waxaan leeyahay dee waa dhagdhag haway dee waayahan dee janalkan hormood 24 waa ka seexateen lagana ma saartiin sheerna ma tiraahiin waxa weeye maagan waxaan iga baashay anu qaqlayaasha maahi niman qaqlayaasha oo Facebook ka qayliyo qaqlayaasha oo maalin kasta waddanka ka soo tabaay wax daran maalin firday waxa soo tabaay wax aan maqal waligeeba kuwaas ka uma harab meesha laga xiro isa yuubsuweeda waa qaqlayaal been rafaad bay ka shaqeynaa waddanka dhammaan waa nabad guuriyo afkooda aan nabad guuriyo Soomaaliya dhanba marka anu kuwaas ka mid maahan waxaan ahay nin iska qabow waa iska sheekaya marna siyaasaddu waa ila tagtaa laakiin inta badan waa iska ilaaliya marka hadda aragtiin janalkan 24 hormood 24 waxa waaye ii sheeg tee sheerka laaga komitiga saara aad ayaan ii salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabadiino